arome kahan damda ma garanayo sababta qolooyinka filimada turjumaya ugu dhagan yihiin filimkan oo aysan ilaa hadda usoo fasixin Soomaaligiisii bas waxaan idin sheegayaa hal qodob oo kaliya filimkan wuxuu ka mid yahay filimadii ugu cajiibsanaa ee soo baxay bishii Agoosto ama bishii 8 sanadkan 2024 oo welibana qayb ka yahay aktarka caanka ah ee ajey davegan sheekadiisu kooban haddii aan ku yara taabto sheekadiisu waxa weeye aktarka iyo atiishada isjecel oo yaryar ayaa aktarku waxa uu geysanayaa crimekaas laguma sheegin sababta balse muddo 23 sano kadib marka uu ka soo baxo xabsiga ma heli doonaa gabadhii uu jeclaa 23 sano ka hor mase maya weliba sababta uu crime ku geystay waxa weeye inay qashqashaadeen jacaylkii uu galay xabsi muddo 23 sano ah ma heli doonaa mirihiisii waa su'aal aad u weyn oo isweydiin u baahan filimkaana it is worth watching waa uu qalmaa inaad tijaabisid waa filim runtii sheekadiisu diyaarsan tahay kuna saabsan romance iyo thriller yani sheeko aad u wanaagsan oo isku xidhan ah anyway bahda filimada turjumta waxaa leeyahay filimkan haddii aad turjumteenna aniga ayaa khaldan haddii aadan turjuminna idinka ayaa khaldan muuqaalkan aynoo sheergareeya oo gaarsiiya meel walba mahadsanideen